dalka joogo dhammaantood meel kastay joogaanba waar wixii shalay soomaali ka soco waayey maanta somaliland mu ka soconaya war ma waxa soconaya lima taquuluuna maa laa tafcaluun buu ilaahay yidhi war ma waxaad odhanaysaan iyo waxaad samaynaysaa way kala duwan yihin ilaahay baa yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusahum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun habeen walba rag baa ka sheekeeya wixii soomaali kala irdhayey dee hadday maanta somaliland dhexdeeda taallo halkeed adu qof maa tahay maanad damiir lahayn maanad garanayn halkaad shalay ku jabtay maanad qof mu'min ahayn haddii shalay maxamed siyaad iyo dawladdu hogaaminayey qoys lagu xeeray mashaariicdoo la qabiileeyey awooddii qarankoo cid keliya wada qaadatay ee u burburtay tani mayna u burburayn ee u dhimaynayn haddaan la hagaajinin ragga qaar baa meelaha yidhahdaan saaxiibnahay somaliland waa muqadas waa been wax muqadasa kitaabka ilaahay un baa jira somaliland waxay ku dhisan tahay doonista iyo rabitaanka dadka reer somaliland bay ku dhisan tahay haddii qayb ka mida la waayo somaliland waa la waayaya horta taa ha la ogaado dantaanu ka hadlaynaa halkan kaga hadlaynaa maaha ta reerkayaga iyo ta gobolkayaga iyo ta qabiilkayaga maaha taanu kaga hadlaynaa waa ta hargeysa laysku haysto waa ta burcan laysku haysto waa ta ceerigaabo laysku haysto dhiig ku daadanaya weeye waa qadiyadii ummaddu wada lahayd oo koox gaari ku tagrifalaysa weeye caawa haddii golaha amniga ee qaranka layskugu yeedho qoys kaliyaa fadhiya aniga cidba igama fadhidaba in la idinayo iyo in la igalayo maxaa wargu haya haddii la caawa hay-adaha wax soo saarka iyo maaliyadda la soo fadhiisiyo aniga cidba igagama fadhidee cashuurtaan aan bixiyo sida loo xisaabinayo sida loo qaybinayo maba ogiye maxaa ku qancaa weliba waxaan ogahay sida loo qaybiyey waar ma waxaad aragtay gobol dhan oo miisaaniyad 300 oo milyana 20,000 iyo 150,000 iyo lagaga soo celiyo ma saasaan aqbalnaa waa ma nololba innagoo kaliya ma qabnay dad kala qaba kuwaana waynu gurmanaynaa waxa la yidhi qof waxa la yidhi walaalkaa u gargaar markuu saxsan yahay markuu gardaran yahayna u gargaar baa la yidhi rasuulku calayhi salaam waxa lagu yidhi saan ugu gargaarnaa markuu gardaran yahay waar waxa la yidhi gacanta ka qabo walaalkaa markuu gardarayo dulmiga joojidhe dee gacantaynu qabannaa soo maaha walaalayaal qodob kalaa ku daraya maanta kuraasida dalka un lama kala qaadanin waxa la kala qaatay mashaariicdii dalka iyo lacagtii dalka soo baxda ayaa cid gaara maxaa la yidhahdaa loogu raray loogu dhisay loogu qalay xoolaha waxa si gaara oo xaafadaysan oo qadiyadaysan loo qaybiyey mashaariicdii beesha caalamka timid wallaahi oo bilaahi oo tullaahi baan ku yidhi haddaad og tihiin ood wax yar ka og tihiin maydaan fadhideen booramiya halkaad joogtaan war ma waxa dhacay sagar halkay ka dhacday in maad ehriyaan ma dalkao dhan bay ka dhacday soo masiibo rabbaaniya mayn wixii sagar ay gaalada ku bixisay ee halkan lagaga dhawaaqay rays ee dawladda soomaaliya milyankay soo bixisay miyaad aragteen meelay marayaan si qabiilaysan baa loo qaybiyey waxa laga qaybiyey degmooyin aan dhibaatadaas ka dhicin ilaahay oo ku ridin baynu leeyahay horta dhibaatada waar ninka dhibaato dhacday u quuri waayey wixii loo soo qaybiyey dadka ee ku dhacday ma kuwa caafimaad qabo ku siinaya waar mid baan ku soo gabagabaynayaa waxa weeyaan noloshu waa halgan cadaaladda iyo wanaaggaa doonayso fadhi laguma helo mana dhici karayso in shaqaale la soo qorsheeyo fiican maaliyad la soo qorsheeyo fiican xilal la soo qorsheeyo fiican nolol fiican inta kaadoo lagu soo xidho ee baabuur fiican la soo saaro la keeni maayo boorame la keeni maayo saylac la keeni maayo dila la keeni maayo lowyacaddo iyo qunijeed la keeni maayo laakiin maxaa la keenayaa waxaad soo ridato wey waxaad ridato dadka yeena mid qodobna ogaada nacayb yaana idinku abuurin tabashada iyo waxaad rabtaan ee wanaagsani waayo dadkan waxaan haystay reer isaaqay gada bursugu yidhahdaan waana isaaqa laftiisa qaar wax wanaagsan rabaa ku jira kuwa wax fiican rabaa ku jira cadaalad doonaya waa la muquuniyo hiil bay waayeene kuwa aynu iskaashanno oo aynu cadaaladdii soo saarno soo taasi danta dalka maaha sow maaha in maanta adduunyada xoogaal baa u tihin
dawladdii tigreega weynada halka fadhiday ee iyadu qaadatay kuraasidii ee maxkamaddii qaadatay ee lacagtii qaadatay ee telecommunicationkii iyadu xukuntay ee maxaa la idhahdaa bariiska iyo tamaandhadii dalka laga beeray iyadu qaadatay qori laguma ridin xabad laguma ridin jabhad laguma ridin maxaa lagu riday waar cod shacab baa lagu rido dad baa bannaanka u soo baxoo yidhi sidaasi nama anfacdo way dhacday cumar xasan albashiir oo taangii ugu adkaa isku wareejiye baa la riday ragga nabadgelyada laguma ilaaliyo xoog nabadgelyada 30 sannadood jirtay waa kan cabdillaahi raggii ka shaqaynayay way joogeene arrin baa lagu dhiso nabadgelyada waxa lagu dhisaa cadaalad baa lagu ilaaliyaa waxa lagu ilaaliyaa wax wada lahaasho waxa lagu ilaaliyaa in waxa ummadda ka dhaxeeya loo ilaaliyo nabadgelyada lagu ilaaliyaa laakiin qori laguma ilaalin karo waxaan ku soo gabagabaynayaa waar movement kan bilaamay waa mid ka duwan kii awalkii hore jiri jiray kii hore wuxuu ahaa odayaal shir jaraa'id qabta oo hudheel fadhiista oo la yidhaahdo may hadleen iska calaacalaan oo masaakiina iska calaacalaan waxa weeyaan waa la isku soo gaadhay waxa weeyaan wanaaggii dalkan baa la doonayaa haddii ay cid gaari yeelatana injirka labada dhinac lahayo dee soo uma sii daynown aad iyo aad baad u mahadsantihiin